anigu waxaan ahay wiil dhalinyaro ah la dhacay dhicinta quutul daruuriga hankiisu weyn yahay hamigiisu aan yarayn hadafkiisuna waa inaan shaqo wanaagsan helo oo aan naftayda ku horumariyo waxaan dabeecad u lahay inaan baxo aroortii waxaan ka shaqayn jiray degmooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan wadada halbowlaha u ah magaalada Muqdisho maalmaha ka mid ah waxaan ku guda jiray shaqo maalmeedkii maalinlaha ah waxaan ka ambaqaaday wadada ku taal dhexbartayga magaalada Muqdisho waxaan ahay kirishbooy ka shaqeeya xirfadda garabsinta darawalada ku shaqeeya gawaarida dadweynaha waxaan ahaa subaxdii qof firfircoon fariisa soo sifaystay salfadood u kacay saxaabada aan horsan saaxiiblaha firfircoonida kuna duuxaystay adkaartii subaxnimo alla warsaaqda barakee dadku waxay ahaayeen kuwa si xawli ah u gala gaariga aan gacanyaraha ka ahay waxaan dadka ururiyo waxaan bilaabay inaan gadaal si tartiib ah u milaysado waxaan meel aan fogeyn ka arkay gabar ku dhawaaqaysa cod sare kuna hadaaqayso hadal micnihiisu yahay walaal gaariga ii jooji fadlan waan hakiyey gaariga markii aan maqlay codkeeda wanaagsan iyo suuraheeda qurxoon kuwaasoo laabta ay ka dhacay garaacay wadnahayga badalay dareenkayga waxay soo gaartay irtii gaariga waxayna igu tiri walaal allah ha ku wanaajiyo waad ku mahadsan tahay qadarintaada iyo waqtiga aad ii hurtay waxaa isbedelay dareenkayga fikirkayga aragtidayda iyo xalkaasi aan kala kulmay anigoo iska maqan xagga maskaxda ee gabadhii igu tiri walaal gaariga ma gudbi karaa markaasi baan ku soo baraarugay oo ku dhahay walaal gudub oo fadhiiso booska kugu habboon oo ka taxadiray naftaada gaarigii waxa uu bilaabay inuu dhaqaaqo maskaxdaydana waxay ku mashquushay hadalladii gabadha oo igu soo laabanaya anigoo dayacay shaqadii ururinta lacagta markii la gaaray isgoyska Sebiano agagaarka Banaadir dadku waxay bilaabeen inay degaan isla markaana aan ahay mid baxsan oo maskaxdiisu maqan tahay waqti kooban gudihiis darwalkii ugu qayliyay ugu dhahay maxaad la mahadsan tahay wariyaa waxaan ugu jawaabay anigoo ismaskiininayo ruuxdii baad egto run baad sheegtay darwal goortii aan soo jeestay kuwii gabay dadkii kaaruuriyey lacagta markii la soo gaaray gabadhii farinteeda ka bixi waayey ilaahay garabka jug iiga siisay dadka badankooda waxay ahaayeen kuwa lacagta si hawo ii siiya micnaha EVC Plus balse iyada taa way ka duwaneed waxay ii soo taagtay lacag qadarkeedu yahay 3,000 shilin Soomaali waxaan ku yiri iska hayso walaal iyadu waa ay diiday waxayna igu tiri walaal waa dhididkaaga ee qaado aniga lacag ima muuqato balse waxaa taga dareemahayga waxayna aadeen xididada iyo bartanka qalbiga anigoo u malaynayo inaan rayo ku jiro waxaan si roos u weydiiyey nambarkeeda waxay bilowday inay dhowla cadayso isla markaana iga durugday iyada oo gacanta afka saaranayso waxay sheegtay nambarkeeda keliya waxay dhiman hal nambar oo ah midka ugu dambeeyo nasiib xumo darwalkii ayaa qayliyey oo igu dhahay war maxaa ku helay adiga anigoo indhahayga fiirinayaan indhaheeda gacanteeda ay laalaado micnaheeda hoos u dhacday gadaal aan u socdo anigana aan fiirinaynin gaariga iyo darwalka halkaasi ayaan ku waayay nambarkii ugu dambeeyey nambarada kaas oo ka saamayn badan helitaanka nambarada kale waxaan ilaabay magaceeda anigoo fiirinaya meesha ay taaganayd waddada ayaa muuqeeda waayay maalintii xigtay waxaan bilaabay inaan waco nambarkeeda balse waxaa iga maqan midka ugu dambeeyey nambarada waxaan bilaabay tijaabinta nambar kasta micnaheeda waxaan tijaabiyey nambarada u dhexeeyo ewer ilaa 9 nambarada qaar waxaan kala kulmayay qaylo aflagaado iyo hadallo aan u wanaagsan naftayda ileen tijaabo ayaan waday ku darsa magaceeda ma aqaano nambarkii ayaan helay qalbi wax jecel ilaan waa cajiibe iyada iga qabatay markaasi ayaan dareemay codkeeda inay iyada tahay marba kama shakinin codkeeda sababtoo ah wuxuu ku qoran yahay laabtayda igana socnaa codka kale oo dhagayga maqlaayeen bilowga wada sheekaysigeena yaa waayay bay ku tiri anigoo cod daciifa kula hadlayo baan ku dhahay walaal oo wiilkii gaariga ee dadweynaha ee kirishbooyga ahaa anigoo aan ka cabsanaynin inaan sheego magaca kirishbooy waxna qof isku kalsoon shaqadiisana aan ka faanin kuna faraxsan waxayna ugu tiri walaal soo dhawow hoos baan iska dhahay
gabar kasta maxay walaal u dhahdaa may meesha magac kale u beddesho anigu u jawaabay baan ku dhahay walaal waan dhawahay kadibna waxaan dhahay walaal magacaaga maalinkii maadan ii sheegin markaasi bay ugu tiri magacaygu waa Marwo adna magacaa walaal magacaygu waa Mufakir markaasi baa hadal murtiga soo fakadeen oon dhahay horantii dhaayahayga baa ku dhexlanto abti waxaa tahay ruux aan xaashaqay anigoo sugaantii sii waday ayay ugu tiri maxaad ula jeedaa Mufakir anigu waxaan hoos u leeyahay gabdhaha ismoogeysiis badana markaasi baan ku dhahay may walaal waa qoraal aan internetka ku arkay ilmuuga inay sugaantu iyada ku socoto allow saal umuuraha murti khasaartay iga dheh qofkan wax u tirna iyada maba aha markaasi ayaan ku dhahay Marwo arrin ayaan kuu sheegi rabay markaasi bay ugu tiri walaal Mufakir arrinkaa ii sheeg waxaan ku dhahay arrinkaan kuu sheegayo xuruftiisa waan hayaa balse ma hayo jumladiisa markaa bay tiri waa arrin cajiib ah markaasi baan hoos u dhahay aniga waa arrin jacayl laakiin aniga bis ayaa iska hadlaayo iyada ma oga waxaan bilaabay inaan su'aalo weydiiyo anigu waqti qurux badan la qaadanayo waxaan ka weydiiyey qoyskeeda meesha ay degan yihiin waxbarashada iyo wada sheekaysi qurux badan kadib anigoo jeclaysanaya hadalkeeda ayay ugu tiri Mufakir hooyo ay ii wacayso ee is aragti dambe oo xiiso leh halkaa haynoo joogto sheekada qaybtii koowaad